macnaha kaliya xambaarsan waxa weeyaan horta mooshinkan xildhibaanada keenay dariiqa lagu keenay dariiq sax oo ahaa dariiqa loo marana dariiq sax oo ahaa gudoomiyuuna waa kii qabtay oo horena waa kii isaga la tirgiis uga hadlay laakiin gudoomiyaha wuxuu isku dayay in mooshinka arintiisa sidii xildhibaanadu u keeneen si aan ahayn in uu xalliyo baahidii iyo duruuftii xildhibaanadu ama arintii ay ka hadlayeen oo xildhibaanadu ku saabsaneed moshinku ka hadlayana in xal la raadiyo sidii loo xalin lahaa la gudagalo مثلا waxa kamid ah in xukuumadda ama wasaaradda cadaaladda laga rabay inay maxkamadii ay sameeyeen adeegii garsoorka inaan la sameeynin maxkamad dastuuriyana oo kamid noqon lahayd adeegga garsoorka iyada hoos imaanaya inaan la dhisin marka dhinacyadaas in la daaweeyo arrimaha ku saabsan heshiisyadii la galay iyo Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya ama Eritrea iyo Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya waxyaabaha ay wada gaargaareen oo aan cadayn in maaragtay la soo bandhigo in laga cudur daarto waxyaabaha khalad ah oo dhacay oo ay kamid tahay khaladaadkii ku saabsan dadkii la weeraray ama dadkii waxyaabahaas ay runtii gudoomiyaha iyo isla soo qaadeen oo qodobadii ku qornaa mooshinkan ay aad uga wada hadleen ugu dambeyntiina iyadoo oo dalabka gudoomiyaha la qadarinayo duruufta waddanka marayo oo runtii isagu uu aad isugu dhabarjibiyay inuu wax isku soo dhaweeyana la qadarinayo ayaa xildhibaanadu waxay goosteen inay ka tanaasulaan mooshinka oo iyagu dib u dhigaan arrintiisa maxaa la yiraahdaa xildhibaanada waa inay mooshin keenaan waa awood sharci oo dastuuri oo leeyihiin waaye ama impeachment ama mooshin kale wax lagu hagaajinayo ha ahaato inta ay khalad jirana uu imaanayo mooshinka impeachment imaan kara mooshina imaan kara inta xildhibaanadu xaq ay u leeyihiin inay ka shaqeeyaan laakiin hadda tilaabadii la qaaday gudoonka iyo ama gudoomiyaha iyo xildhibaanadii keenay mooshinka kulamo badan oo ay galeen iyo wada hadal badan oo ay wada hadleen kadib waxa la go'aansaday oo xildhibaanadii gudoonka ayagu ku wada qanceen in arrintaas hadda aysan dib in loo dhigo inay tahay waana laga yeelay marka way la laabteen xildhibaanadii mooshinkii gudoomiyaha ayaa sidaas idinka codsaday miya gudoomiyaha wuxuu codsaday in dariiqo aan ahayn dariiqii anagu aan rabnay wax lagu xalliyo in la daboolo la isku dayo baahida rasmiga ah oo maaragtay ka jirta impeachment in la keeno ama ka jirta daldaloolka sharci ama maaragtay dambiyada aan ku soo eedeynay ama soo sheegnay lagu soo eedeeyay madaxweynaha waxyaabaha dhaliyay iyo qodobada ku qornaa mooshinkaas ayaa in uu la xalliyo oo si gaara loo xalliyo la iska xil saaraa laga ballamay oo ay ugu horeyso sida aad ka aragtay qoraalka la soo saaray maxkamadda dastuuriga ee in la dhiso oo maaragtay wasaaradda cadaaladda iyo guddiga xuquuqul insaanka cadaaladda iyo xuquuqul insaanku inay ka wada shaqeeyaan ama aan idhaahdo arrimaha diinta iyo cadaaladda ay ka wada shaqeeyaan sidii loo soo dhammaystiri lahaa maxkamadda dastuuriga howlaheedii marka hadda waxyaabahaas ay tahay aragtida uun ilaa xalay ugu dambeystii ilaa maanta socday oo la isla gaaray in halkaa lagu xalliyo marka hadda waxay ka dhigan tahay warqadan in khilaafkii jiray xal laga gaaray ka dhigan tahay xildhibaanadii engagement-ka keenay madaxweynaha inay la laabteen oo ay iyagu tanaasuleen iyagoo fiirinaya maslaxadda dalka iyo danta guud iyagoo fiirinaya in ay waajib tahay in la xalliyo eedeymaha ku qoraa waraaqdaas qodob in loo xalliyo ay tahay ayna dalbanayaan haddii aan la xallin oo qodobadaas sii jiraan oo aan qodobadaas mid loo xallin oo jihada ay qusaysa aysan xallinna xildhibaanada waajibkoodana waa u taagan yihiin inay mar kale soo celiyaan wax fog ma aha laakiin marka hore waxaan codsanay gudoonkana oo mas'uuliyadiisa qaatay wixii ku qoraa meesha in la xallinayo hay'adaha garsoorka cadaaladda ilaalin lahaa in la dhisayo oo guddiga adeegga garsoorka la dhisi doono in maaragtay cidii dambi laga galay oo dalka dambiya looga galay dambiyadii la qirto lagana cudur daarto in maxaa la yiraahdaa ii sheeg heshiisyada la galay dawladda Soomaaliyeed shaki uga dhalin kara jira haddii heshiisyo noocaasi wixii jira oo heshiisyo noocaas in golaha shacabka la hor keeno oo laga doodo annaga waxyaabo badan oo maaliftii ay dalbanaysay impeachment-ga qodobada ku qoraa ayaan rabnaa in la xaqiijiyo qodobadaasna waxaana la ka ballan qaaday in dhammaantood la xallin doono haddii ilaahay yiraahdo qodob loo xallinayo qodob la isu dul taagi doono markaana waxaan annaguna dhinaceena tanaasulnay inaan impeachment-ga la laabano